horta anagoo ah hay'adda wadaniga Steel Fast Volunteer Organization SVO waxaan ka bilaabnaa howlgal buufinta oo aragtaan qalabkii buufinta aan keenay oo ma garanaysaa disinfectionka ama fayraska ama bacteria dilayay anagoo marayna tallaabooyinka caalamiga ah ee WHO ay u dhigtay qaabka loo disinfection gareeyo alaabta loo disinfection gareeyo xanuunkan coronavirus viruskiisa loona buufiyo marka anagoo la kaashanayna ka hay'ad ahaan maayarka degmada Laascaanood iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland isduwaha gobolka Sool anagoo la kaashanayna halkan ka bilaabayna waxaan kaloo eegana ka bilaabaynaa labada xarumood ee karantiinka meesha la yiraahdo Xudun degmada Xudun iyo degmada Taleex waan ka bilaabi doonaa insha Allah Abdullaahi Kariim marka waxaan leenahay inuu gacmo wada jirba wax ku qabtaan hay'ad ahaan iyo dawlad iyo shacabba xanuunkan waxaanu uga hortagi karnaa ilaahay naga haye inaynu gacmaha isqabsano in barbarkay ka baxdaa waa bakeela qalaan noqono marka insha Allah Abdullaahi Kariim waxaan ku soo dhaweynayaa odayaasha deegaanka oday kamid ah weynana haddaan nahay gobolka odayaasha gobolka iyo degmada waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ilaahay naga hayo hay'adana waxa weeye waa u hambalyeynaa iyadoo hay'adaas si wacan gobolkan ugu shaqeysa oo aanu leenahay waxa la wixii marsuuc ah loo dhiibo hay'ada iyo waxaanu la wareegnay qalabkan naloo keenay oo uu siday in Siciid aw Cabdi yaanu la wareegnay Cabdikariin Siciid aw Cabdi runtii waa talaabo oo xagga horumarka loo qaaday waana agab wax ka qaban doona baahida corona-19 ee ka taagan magaalada Laascaanood insha Allah suuqyada haday tahay hilibka iyo haday tahay khudradda iyo haday tahay suuqyada intaba waan ku buufin doonaa qalabkaana waanu kala wareegnay aad iyo aad buu marnabaad u maasan yahay tiimka SVO Waqooyi Bari TV